بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dhammaan bulshada Soomaaliyeed rag iyo dumar meel ay ku sugan tihiinba aad iyo aad baan idin salaamayaa. waa Cabdisalaam Gentleman, wadaniga Soomaaliyeed, suldaanka dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxaan ku ori maasha Allah taransida soo dhawaada insha Allah taala. waa page-keeni halkan ka bilownay ee bahda midnimo qaran tawcaba libaaxu dabadiisa ka ciyaar دقيقة كأجمده تيمت وكعرّ طبعاً بيجيش كودن النجالة كنا النجالة ميل كستنا النجالة وطنين تو ميل كستوى كهالي كران لما نأمسين كرو طبعاً هو نقول دالي دوران نقول دوران أمو هداية سيد عبد الله سودو ورا العاديات بنكو سلامة يا كل مدين وكلام قرين بريد إسماعيل أدونا عاديات بنكو سلامة يا عبد الرحمن آدم سلام شرف أصحابتنا إن شاء الله تعالى بالوينوصة بدن دونان بنان عبد الله موكي عبد علي موجا نفليا إنه مجا عسي هاي موجي هاي تو هي كل أنت أي تذكر نصير بدن يعني إن شاء الله تعالى هم بريء نسكرنا قولي يقبنيمو مركز تبوح نكوه هذينا أفك شعبكم بالشدة الصومالية meel allaala meel ay dunida kaga sugan yihiinba horta marka koobaad waxaan bartan uga cadeynaya dadka maalmahan in muddo ah tashuushka ilaa Soomaalidu oo raxmad tashiilo waxay jecel yihiin waxba is qabsaday waxba sidan noocan isku dhacay ordagantii ka yareed adigana aad baan ku salaamayaa ibriyahan camalka ka dhigtay shombe anisa aragsan waan ku salaamayaa walaal adigana salaan sharaf horta inoo shargaray intii nala ku jirtaaba si faafiya عدوغا Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay markastaba way arag وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدوغا wuxuu jecel yahay in uu had iyo jeer ka faa'iideysto Yuusuf Farax adigana aad baan ku salaamayaa. dad baa isku dhacay dad baa wax noocana wadaniinta waxa ka dhaxeeya wax aan calankaas naga dhaxeeya wali xoosh adigana aad baan ku salaamayaa. dabcan fikirkii waxan waa halkan dhow anagu dabcan hadaan nahay wadaniinta Soomaaliyeed ee bahda midnimo qaran iyo baha kale ee gobsoor ugu horeyso iyo saaxiibaday oo aan bartanigan dhamaan ka wada salaamayo Ibrahim Mubarak sidoo kale Abwaan Cabditax Boodari halgamaaga weyn iyo Jamila Jeje iyo dhamaan ku halka bahda midnimo qaran qarannimo naga dhaxaysa ama aanu meeshan doona ka soo galno waxa jira qoliyo iyagu interest wax ku shaqaysto oo xiiso leeyahay oo cadowga shaqeeya Soomaaliya runna waan idin sheegayaa cadowga Soomaaliya aad iyo aad buu farbadin aad iyo aad dagaalka Soomaaliya ku socdaana mid sahlan ma laakiin waa mid aanay wax ma garato fahmi karin iyo qofka qabiilada ku intay ma fahmi karo ninka reer hebel taagan ee qabiilka taagan iyo ka lagu shaqeysanayo cadowga ku shaqeysanayo sida nimanka la baxay ninka sheedaan si leeyahay ma fahmi karayaan. Chinese baa kula dagaalamaya, Bangladesh baa kula dagaalamaya, India baa kula dagaalamaya, Muslim iyo Masiixi baa wana la dagaalamaya. Cabdiwahaab Shilaadi aad baan ku salaamaya walaal soo dhawow bulshada Yaasiin Dala Darwiish aad baan adigana ku salaamaya ma sha Allah. waa barnaamijka midnimo qaran oo ah halkii aynu xuduudteena ka soo bilownay ma sha Allah oo anigana aad u salaamaya maadaama anigu aan ahay suldaanka dhalinyarada Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed dhalinyaradu dabcan ay saldanadana ii doorteen tan waxaan suldaan u ahay dhamaan macayla ka xunna tooshkan soo gohaynaya ma dhinto saaxiibayaal dawcaba libaaxu dabadiisa ka ciyaar daqiiqan ka eegmada deymadu ka carra dhammaan meel kasto oo midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed iyo gobonimada Soomaaliyeed laga hadlayana waa madashii waa gurigeedii waa beedku doonaha noqdo meeshu doonaha noqdo wallahi waa nagu dawaqi doonta cadowga Soomaaliyeedna wuu burburaya. aniguna waxaan u taaganahay markastaba 24/7 waxaan u taaganahay dabadhilif inaan la dagaalamo nidar baan ku maray oo hadalkaygaas ay ku gubanayaan hadalkayga sameeyna arag duubtayda qaar baa moodo darabal sheedaan daran doorigeede duubtayda hadalkay ku gubtaano hebelo waxaan ka aamo waxaan kala daa meel yar dhowna waa lagu wareegayaa Soomaali dan Fartuun Maxamed walaal adigana aad baan ku salaamaya Allah ya ciise hablaha Soomaaliyeed horta waan wada jecelahay dhamaantiinba laakiin hablo idin kana mid baan idin sheegay oo cadeynaya oo aan bartaliso aan ku cadeynaya haddaanu nahay midnimo qaran iyo haddaanu nahay nabad iyo nolol iyo haddaanu nahay gobsoor haddaanu nahay iyo wadaniinta Soomaaliyeed oo dhanba waxaanu soo ogaan oo cadeynayna
rag ku soo gala magacyo haween oo haweenkii future of Somalia waa isna u joogaayo waa page-keygii waxba way shaqeynayaan adar aniga waxbana lagama qaaday iyo meel yar oo halkana iyo dacwadiyo lacagta ka dhamaanaysa wallahi lacagta ka dhamaanaysa baan ku soo kaxaysta shadaadiintoona soo kaxaysta waxaan cadeynayaa hablow magacyadiina hablaha Soomaaliyeed horta wada gub waana wada udgoon waana wada sharaf badan laakiin se waxa dhacda in ragga qaar magacyadoodii ku kalsoonaan kar waayeen oo magacyadoodii ee magacii Axmed iyo Jaamac iyo Cali inta la isla soo dhaafay ay Yasmiin midhanayo Faaduma Qurux midhanayo magacyada hablaha Soomaaliyeed in la idinku haysto ni soo caytamaya markaad sii daba gashino dabna wuxuu ku noqonayaa ninba waa xaqiiq waayo waxa incredible inan caytamaysa inan Soomaaliyeed xitaa haday ku fahmi weydo hablaha Soomaaliyeed waxaan ogahay in iska aamusaysa laakiin magac hableed buu soo qaadanaya Kawsar Qurux midhantu soo qaataabo halka ka soo caytamaya qaranku sidaas u dhacay qaranku sidaas oo kale uu sameeyay أنا رجعت بحكي هذا وحيقول قريب بيج كنا أنا قال future of Somalia أنا قال قبصور أنا قال ميل كستو والدنيا لقاها هلا أنا قال إن أنت اللي هذا بيج كذا إن أنت يدرون والدنيا ده لها دليل الصلاة عبد الله بيج كذا دارون كسر قلا عبد السلام جد المال وتراسته والدنيا ده قف كستو نك أبكو دونا شكته كم وريجو قف قال أنكو ريجيا بيج با أنا قادر وانكسر ريا أو وانكقبوين إنكو ريجا فيو با قطعوانا ييو warana dadku cib iyo dhulba fariintidu way gaadhaan iyo intaas oo boqol baa kugu falowray waa dadka wax magaratada ay meesha dhow ka fakarayaan hebel baa fiyu badan baa leedahay waxa sodon Soomaaliya baa aniga iga qiimo badan 30,000 oo qabyaaladeystayaal 30 nadiifa oo qarannimada jecel oo qabka Soomaaliyeed jecel ayaa 30 maangaab oo ku wareegaya hebel baa saasoo fiyu raba daawaday kumana shaqaysto Allah raxmaanka baa wax siiyo waligeena waa noolaa saasoo baan u shaqaysan jiray wax Allah la wadar waxaan ku shaqaysta YouTube wax laga helaayo nimanka inta badan ku soo jiray ee view-ga click lacag ku raadiyay meeyi Allah ya ciisagan uu nolol farxad la baaska noolahay aniga dhamaan wadaniinta Soomaaliyeed bahda midnimo qaran baan ku shaqaysan Cabdifataax Boodhari baan ku shaqaysan oo ninka abwaanka ee muctarafka ila rawaada sameeyay ee muddada badan ku jiray dad agaga oo saqajaamina baa waxaan ku shaqaysta YouTube wax laga helaa page baa waxaan lagu helaa أدرى waxa uu ka qaboyn qarankeega Soomaaliyeed baan afar tagsaacad u taagan marka inta soo ku deeqdo qof kale kan aniga ale kan imika bay igala soco kii kala igala socon karisna igala soco aniga leeyma musin karo saaxib waan noolahay I'm still alive meel aan ka soo hadlana ninka ka soo hadlayo un baan hebel bow samaystay Facebook baa la xiray Facebook halaastan Chinese iyo Amhara iyo Imaaraadka tuugta iyo waxa soo shaqeeyaan dabadna waxay soo kaxaysanayaan in anu qarankayga jecel qarankuna wallahi uu jiriyaa uu joogiya in scenario soo kaxaysanayaan dad la soo kareysto indi baa la soo kareysanaya Pakistani baa la soo kareysanaya war waxaanu kuma mashquulsan hebel Facebook ka xid waligii kuma fikirin qof Facebook ka xid qofkan Facebookiisa si dabagal wixiisan kala eeg waxaan ku mashquulsanahay waxaan ku farxaa marka dalkayga war farxad loo ka yimaado sidoo kale waxaan barbar taaganay markastaba dawladeeda iyo qarannimadeeda laakiin qofkan Facebook ka xir qofku mid dhimanaya meel kale waxaan sameysanaynaa TV waa arki doontaan ba insha Allah taala 2019 maalin dhow TV ay ka soo galaan wax allaala wixii wadaniinta patriotica wax lidhaa waa la dagaalamaya wadaniinta dagaalka Soomaaliya ku socdaana qofkan Facebook ku mashquulsan ee view baa la soo xirayo wallahi inaad guna jirin waxa kula dagaalamaya maalin allaala maalinta la arkay rajo Soomaaliyeed soo noqotay oo dawlad Soomaaliyeed waa Soomaalidu waxa loola dagaalamaya fahme wadada isku dhaqana isku diina isku dada xitaa waad arkaysaa social media waxa la soo galiyay qaar diinta masiixiga faafinaya oo la doonayo Soomaali xitaa bal in bad kamida in la helo oo diime kala qaato marka dabcan Soomaali dagaalka ku socda meel yar oo dhow Soomaaliya moodina barnaamijkana si share garay oo si faafiya ma aha halkan inagu isku haysanay qabiilkan iyo war diinta la rabaa in laga saaro in dhaqankaaga la xumeeyo la doonayaa inay dawladdu ku timaadano Soomaalina waxa loogi maalinta Soomaali ay hore u dhaqaaqdo inaanay soo noqonin oo Soomaalidu ama dadka Soomaaliyeed waxa la dariska oo dhan iyagoo in yar jiray oo 60 waniga xornimada qaadan waxay noqotay dawladii ugu awoodda badnayd ee geeska Afrika ama Afrika noqotay historygeedu kuma haysan waxay kala noqotay ganacsiga kuwii ugu horeeyay noqday xaga waxbarashada Soomaaliya balaayo war waxaynu hayn dad istroona duniduna wayna taqaana qofka Soomaaliga
maraykan waa kuwa ku nool Soomaalida iyaga ganacsigooda wata qofka Soomaaliga ilaa European kan warkiisa oogin dadka Soomaalida waa dad quality-goodu aad iyo aad u heer sarreeyo waa dadka aan hablahoodii iyo raggooda aan odhan ay ka xishoodaan waan gaajoonaya waa dadka tusaale ahaan dadka ay dhudhuban waxay ahaan dadka maraakiibta maraysa badda Indian Ocean intay kaba talaabeen badahoodii badii kale international caalamiga ah ka soo qabsanaya ka afduubaya maraakiibta ahaan quwadiina la intu sameeyo waxa lagu la dagaalamaya waata sidoo kale dalkan aynu leenahay Soomaaliya waa dal istiraatiiji Allah Rahmaankana boqocad importana oo istiraatiijiyada uu Ilaahay ka dhigay ma u maranaysaa wax allaala wixii bad ku goosho oo dhan wax bad ku goosho oo dhan boqolkiiba 80 biya Soomaaliya ma waa labadan inuu soo ka yimaadee badooda Indian Ocean iyo Red Sea waa istiraatiiji waa international ma fahmaysan marka waxaan ugu la dagaalamay dunidu waxay fahamtay Soomaaliya meeshan ku taala inay istiraatiijiyad tahay dadka Soomaalidu inay yihiin dad quality-goodu ama tayadoodu ay ka sareyso umada dadkan kale ee Allah Rahmaanka waa bar waayo dadka halka semidesity baa dhulkeena ku nool waa dadka dhiman waayay waa dadka wali nool ee dagaal kasta lagu soo qaaday ee la isri baabiya ee haddana qaxoonti kasta dalkiisa inta la burburiyo wali nool marka walaal wixii la arko inay Soomaalidu dhaqaaqayaan ma aniga ma faanayo qofka la arko Soomaali cid u dhaqdhaqaaqaysa oo midnimadii Soomaaliyeed ka hadlaysa iyo nin qablaho qabkii Soomaaliyeed la yimaado sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Allah noo daayay iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa loo adeegsanayaa wax ma garato Soomaaliya oo magaca kula wadaag ee lagu adeegsanay balimka dameere group waxaa naga dhaxay qaranka Soomaaliyeed baan ka hadlaa ummadda Soomaaliyeed sharaftoodan ayaan ku jecelahay waxaana loo adeegsanayaa arkaysan Soomaali dameer garaalla inta fiican oo aad baan salaamaya wuxuu soo kireystay ilan daahir cali soo waynu naqaanaa ninkan la hada Shaydaan Wisi anu Shaydaan Wisi baan waqana wuxuu yiraahdaa wuxuu hadda maraya bariyahan markuu arkay in wadaniintii Soomaalida farabateen meel kasta wallahi waan kugu soo galayna adiga iyo cidda ku adeegsanaysa dadka adeegsanayana waxa weeyaan cadowga Soomaaliya wax allaale wixii cadow Soomaaliya ku ayuu adeegsanaya waxna ma qoro waxna ma akhriyo waa jaahil faaruq oo barta soo fadhiya eedadii baanu ka naxayn hooyadii baanu ka naxayn dadka walaaladii baanu ka naxayn ee Muqdisho aanu ka naxaynay ku eelan ku leedanaya lagu qarxinayo Allahu musta'an qaraxida geysanaya laakiin isagoo uu shaqeynaya waxa uu jecel in Muqdisho oo la shaba in dadkuba ay dhintaanba marka wuxuu adeegsanaya Chinese Pakistani Indi calooshu shaqaystayaal amxaaro imaaraadkan duliga ee dekedahani ku soo duulay waxa soo dhan buu adeegsanaya dabadna waxa la oranayaa waxa la dagaalamaya qof kasta oo Soomaaliya oo dalkiisa ka jecel oo raba inuu dalkiisa horumaro walaal dabcan si kala baayaan kuma soo qaban karo siiro balaaran biigu yaala qof kasta oo dalkiisa jecel oo doonaya in sharaftii Soomaaliyeed ee qarannimadii ka hadlayo calankii iyo dawladnimadiisa taageersan way maxaa dawladda u taageeraysaa bilaahi baan ku dharshay Sweediyo dawlad Soomaaliyeed qofka adayoon taageerna dawlad Soomaaliyeed dawladdu waxay ku jirtaa dawlad Soomaaliyeed waxay ku jirtaa geeyigeena badbaadadiisu iyo dekedaheena ku soo noqonayaan maantaba ay ka shaqeynaysaa dawladdeenu waa dawladnimo ma maamul baa wax ina taraya ma qabiil iyo qoys baa wax ina taraya 27 sanadood iyo 28 sanadood wax ay ku keenay wal calanka kale Faransiiska la iska daayo kana waa kii Soomaalida laba soo maras barbardhig kara anu dawladda Faransiiska ma sha Allah way ogtahay waanan waxaan ka shaqeynaa way la socdaan oo inaan qarankayga Soomaalida jecelahay qurun iyo qabyaalada hore ay isku dayeen macaalool war ninkan xasiloonida dalkiisu jeceliye waa tabtaan calankayga barta soo dhigtay baa iga saray bal dawladnimada Soomaaliyeed waxa lagu diiday Soomaaliyeed ninkan dawladnimada diidan muxuu doonaya ninka dalkiisu inuu dago diidan muxuu doonaya ninka midnimada diidan muxuu doonaya maxaynu qabyaalad ku keenay maxaynu ku keenay wax la yiraahdo qoys tusaalahan maanta waxa la socotaan Hargeysa in yar baan Hargeysa dul istaagay horteyntaana Hargeysa dul istaagin waxaan bartan ka baahinayaa oo ayagana aan aad ugu mahadnaqayaa bulshada ku nool wadanka laada Imaaraadka meesha la hada Dubai run baan idin sheegay xaqiiqdii nambarkayga 14 ugu dambeysay dunida Soomaali meel ay ku sugan tahay la soo xidhay ayaga la soo xidhay Cabdisalaam waxa xidhan codkaagu uu soo gaaray codka nimankan kalena uu soo gaaray bal qisada u fiirsada Imaaraadki maanta wuxuu sameeyaa bay dhahan dadka ay la soo xidhiidhaya beenaan markaatigiisu fogeeya iyaguna waad arki doontaan
tiifiyadii waanu loo diiday bay dhahdeen waa imaaraad baan joognaa inaan la xidhaa baan ka baqanaynaa haddaanu ka hadalno dhibaatada ay nagu hayaan maamulkan Hargeysa gaar ahaan sheegaantu nagu hayaan iyo xisbiga kulmiye waayo wayna takooreen dhibaatay noo geysteen waxbana nooma qabanayaan imaaraadku maanta wuxuu bilaabay oo wararkii ugu dambeeyay in Soomaalida ciqaamadaha ku joogtay dalka la hado Dubai loo jeedin waayo beenan markaatigu soo fogaya soo baara haddaan beenka sameeyay iyagoo oo aan imaaraadku kala saaraynin qofkan waa Somaliland kan waa Puntland kan waxa weeye Soomaaliya ka yimi ayaa waxa loo diiday imaaraadku intii kharash haysatay iyagu dhaqaalaha haystay way ka yaaceenba oo qaar gadar bay aadeen de qofkii dhaqaalihi badan haystay adigu asadkiisa ama capitalkiisa lacagtiisu fara badnayd laakiin kii kale iska miskiinka ayaa shaqada yar hoosahay waa laga diiday in baasaboorkii loo jadiidiyo marka wuxuu dhahay Cabdisalaan Jitamaano farintaad naga gaarsiisa waxa weeyaan kulmiye iyo jeegaanta iyo gaar ahaan ninkan yare Axmed Silaan Sodogow iyo Helaa Baasha Morgan bartaasaan marinaya qoliya YouTube-yada insha Allah taala sii faafiya idinkuna sii faafiya waxay yiraahdeen warbalniyo ninkan wuxuu istaa baasaboor British waxaan leeyahay British busta oo UK buu dalka ayaa soo siiyay tusaalaha su'aal bay weydiin wallahi dumar macal ooyiya oo Dubai jooga oo le bal maxayna tareen Somaliland maxayna taraysaa waxay dhahan safaaradan meesha ku leenay safaarad kuma laha baasaboorkoodii kama shaqeynayo nolomada soo jadiidinayo waa haween Soomaaliyeed garta oo ooyiyo meesha dadka shaqeysanayo muddo joogay marka waxay yiraahdeen Cabdisalaam tusaalahan Faransiiska ku noosh maxaad ku joogtaa waxaan ku dhigay Soomaalinimo oo aniga Soomaalinimo la igu qaaday kuwan kale xitaa buuqa baan ku dhigay meelaha ka qaylinay ciyaalkan brainwash lagu sameeyay Europe oo dhan ka qaylinaya jamhuuriyadda barakaysan waxa de ciyaalka lagu sameeyay anigu de ciyaalka waxba oran maayo nimankan ku sameeyay dhamaantoodu waa kuwa Soomaalinimo ku dhiibeen Soomaalinimo ku ciishiyay Soomaalinimadu waxaan sal guurin waa waxaan laga maarmay waa waxaynu horanahay Arabka Imaaraadku Soomaali buu yaqaan okay waxa dhacay bal hadaba ka warna Cabdisaano Dubai man maanta ku nool war dadka dhibaaysta loo gurmaday TV-yadu uma tagi karno xitaa hoonka ibal inanka u shaqeeya wuu joogaa bay yiraahdeen uma tagi karno haddaanu ka hadalno wax weyn afsalax ku dhig oo imaaraadku waa la xidhaya Baasha Morgan basaas buu noqday imaaraadku u shaqeeyo isagana soo xidhay isagu wuxuu ku socdaa bay kuleen waa isagu iyo garta wanikan nidhe Somaliland baan u fadhiyaa imaaraad shabeel alla geesi alla iyo isaga doon ku salaamay beenaale markaatigu soo fogay birta carab soo fadhiisto wuxuu ku joogaa imaaraadka oo imaaraadka ku ceeshaa sagoo la safiir baan u ahay Somaliland balada ka u fiirsada anigu umada Soomaaliya oo dhamaan xuquuqdooda u dooday wuxuu ku joogaa baasaboor ay leedahay dawladda British waanigo Cabdisalaam maanto baasaboorkan ay siisay Faransiisku baasaboorkayga yar ku jooga meesha la yiraahdo sida dadkan falan oo kale Dubai oo kale hadhowna soo istaaga wax la hado Somaliland wax noocaas baana abti Maxamed abti taaqadan abti koleeyay baa jira taniga yar faraday xidhanta iga raale hada inaan abtay bartan la joogay marka walaalayaal bal ilaahay baan idinku dheershay aqliga iyo garashadaas waa maxay haddii uu baasaboorkana shaqeynay muxuu isagu ugu joogi waay baasho waa inaan ku sii digo niyo bal dadkan dulmiga lagu hayaday marka aniga itaal dadkaas waa dadkii Dubai joogay aniga itaali soo bideenba oo dhahay Cabdisalaan Jitamaano maadaama suldaan tahay oo maanta dhalinyarada suldaankoodii tahay fariin naga gaarsii dawladeedii Soomaaliya ama ha noo soo gurmato ama baasaboor imaaraadka hana gala hadasho waa imaaraadku maanta wuxuu bilaabay wax la yiraahdo Allah musta'aan wax la yiraahdo Soomaalidii inuu ka aarsanayo horena waa ogeedeen Soomaaliyeeyo waxa dhacday ila Carabtani waa dad iyagu dhoodu dadka maxayna taray imka maanta Yurub baa ku nooshin Yurub tusaalahan deewan nimanka iyagu bay helo kitaabka Mareykanka daali Arab Muslim bayna la sheegata wardankii Soomaaliya markuu burburay dal Carbeed oo Yemen ka ahayn oo qofka Soomaaliga si xorriyadiisa isaga joogo iyo Suudaan oo nala Afrikaan istoonay Arab ahayn wali miyaad aragtay Sacuudi wadinka arkayo tarxiil wata dadka laga soo tarxiilay imaaraadkuna maanta bilaabay dulqaad badanna ma laha mana sameyn karaan waa European-kani system bay ugu dajiyeen waa taas xornimada siiyeen siyaabo yar oo kale in direct yahay kula dagaalaman marka maanta waa umadii imaaraadka joogtay dhibaato weyn baa soo food saartay loo mana kala saarayo waa Somaliland waxay ku leeyeen marka dadkaas bal waa tan hadii Somaliland ay shaqeynayso ay leedahay safaarad ay meesha ku leedahay baasaboorada annagaaba $1,000 ka siisanayne ha noo keenan oo dabatana dawladdan imaaraadku
ha noo saarto wax la yidhahdo berman ha noogu dhufato dadka meel la dhibin imaaraadkiina maanta dadkii uu soo erinayaa wuxuu leeyahay idinma jadiidinayaba sida horeba ugu dhacday tusaale ahaan xitaa bal tusaale kalena waan idin siinaya beri dhexdaasa oo ay dalkan aynu isagana walaalaha nahay ee soomaaliyeed ee jabuuti waa kuwii isku dhacay dowladdan la yidhaahdo imaaraadka waa beriye dhexdaas oo aan waqti badanba kama soo wareeginba kadibna waxay sameeyeen imaaraadku wax allaala wixii shaqaalee jabuutiyaanka halkan ay la joogaan wallaahi gurigan iga dambeeya dabadiisa inanka la halkaasaan ka salaamaya gurigan iga dambeeyuu degan yahay cabdilaahi baa la yidhaahdaa wuxuu ka shaqaynayay kambani imaaraad ku yaalla waa nin reer jabuutiya ciqaamad buu ku joogay gebigoodiiba way soo dareeriyeen way hurgufeenba wax allaala wixii jabuutiyaana nagaba saaraba maantana ummadda soomaaliyeed bartaasay maraysa haddaba nimankii lahaa imaaraadkee faysal lahaa ee guriga ka dhistay kii maanta hadlayey axmed silaayaha guriga looga dhisay baasha morgan kan yare meesha ku jooga baasaboorkii britankaa ku joogay british passport ku joogow dadkan haddaba jiha u samee wadigan maalin odhan dadka cuntada iyo xanuunka ku abuuraya leh soomaali ma nihin somaliland baynu nahay safaarad qunsuliyad ama safaarad waxa la yidhahdo embassy baynu ku leenahay waxa la yidhaahdo haddaynu somaliland nahay aynu ku leenahay imaaraad war imaaraadku ama cabdiweligaas ha u yeedho ama silaaye ha u yeedhe shirkaddan waa shirkad maafiya oo tuuga waxna ma aqoonsan karaan dowlad soomaaliyeed bay yaqaanaan laakiin waxay doonayaan shirkaddan maafiyada oo dhaqaalo bixinaysaa cabdiweligaas iyo maxaa dhifranka u dhexeeya muuse diyaarad raacay baad nagu leedinoo buug kusii akhristay dee maantana cabdiweligaas baa loo yeedho isna diyaarad baa looga yeedho wax fahme waxaa loola dagaalamaya soomaalinimadii dekedaheenanba ayay rifacayaan talabaad xitaa dekad kuma horumarinayaan waa habeenkii xalay oo tegey war d b wall iyo imaaraad baa dekad kuu horumarinaysa waa maangaab ninka waxaa ku fikra tusaale ahaan bal ninka haddaad iminka supermarket weyn haysatid kun jeer baan ku soo celiyey supermarket weyn baabad haystaa ama ganacsi business oo dukaan weyn oo shoob oo kalaabad haystaa dukaan kale oo kaagii ka sii cajiibsan hortaada ma ka fur lahayd ilaan tusaale ahaan imaaraadka dalkan la yidhahdo imaaraadka dhaqaalaha ugu badan waxay ka heleen markii ay dekedii xidheen cadan iyo yaman ay ka xidheen waa dekedooda markaas siday dekeda kuugu horumarayaan talabaad adigaa ka istiraatiisanoo haddii maanta soomaaliya insha allahu tacaala way horumari doontaa oo horumarka wuu iman doonaa boosaase iyo berbere marka aynu habaynay oo horumarino soo ma ogid wax alaala waxay australia ka yimaada iyo wixii maraykan ka yimaada iyo wixii dunida dacaladeeda ilaa meesha lahada indonesia iyo malaysia wixii ka yimaada waxay soo maraan marka hore biyaha soomaaliya inta bal maabka dib ugu noqda annagu soomaaliya kun jeer baan wax idiin sheegnay dadka nimankani waa tuug waa maafiyo waa kadaabiin munaafiqiina maabka dib u eega dabadna maabkan eego waxaad eegtaan war biyaha soomaaliya berbere iyo boosaaso iyo muqdisho iyo maa uga dhow biyaha maraakiibta caalamiga ee dunida u kala gooshta kuweebaa dekadahan imaaraadka uga dhow dee kuweyna uga dhow tusaale ahaan imaaraadku taa dekeday soo rafaceen kun jeer horan ku soo celina waayo been bay dadka uga celiyeen anagu runtaan halkaa u fadhiyaan waxa dekeda koobaad ee dunida waxaa new york ayaa ah ilaa abto no ilaa imika dekeda labaad ee dunida ugu mashquulka badan ee ugu istiraatiijisana waxay ahayd marka dekadaheena laga tago cadan bay ahayd cadan yaa soo rafacay d b wall baa soo rafacday cadani maanta maxay tahay bal isweydiiye cadani waxay tahay meel maraakiibtu ay iskaga dejiyaan waxaan la yidhaahdo kaargooga ama allahu mustacaan dee waxay noqotayba meel ay beriga horena waxay ahayd dekeda ay shidaal ka sii qaataan iminkana waxay noqotay meel ay iskaga dejiyaanba baalahan waaweyne maraakiibta la saaro dib u baara oo taariikhda baara okay waxaan usoo daadegayaa oo aan rabaa inaan iyadana in yaroo macluumaadeeda ka siiyo horta niyo qabyaalada waxaa la dhahdaa waa wax aad iyo aad u xun oo u adag oo dadka xanuun bay ku noqotaa runtii maanta waxaa hargeysa ka socda hargeysa waxaa ka socda horta anugu intaan noolahay dadkaa runta waan u sheegay ama ha qaataan ama ha iska dayan meeshan hargeysa la yidhaahdo iyo maamulkan jeegaanland horta waa meherad ay haystaan nimanka la yidhaahdo jeegaantu waa laba reeroo yaroo isbiirsaday oo marka horeba annagoo qabiil ahayn ilan qabiil qaran ma noqdeen ayaa haddana laba qoys ay sii shuraakoobeen shirkadaha qaar sidaa la socotaanba waxaa la dhahaa public company waa anugu shirkad baan u aqaanaa reer leeyaho qolo kalena shirkadda way kulaalaysaa oo dheriga qaarna laftay dee kala baxayaan qaarna way u dhow yihin waa laba haybood hayb anigaa ka soo jeeda oo bariga burca la yidhahda waxba qabiilkooda waa iska garan doontaa qayb kalena waxa weeyaan waa gabiilay oo
waa waqooyiga hargeysa shirkadda horta iyaga u furanta dadkan kale ee ama reer sool ha noqdaan ama reer awdal ha noqdaan ama abtiyaasheedan hargeysa koonfurteeda dega ha noqdaan ama kuwa galbeedka burca dega ha noqdaan waa waajmaano weeyaano waa waajmaano u ilaalinaya dabeetana waajmaanada iyaga waxaa loo adeegsadaa dhowr nin oo shakhsiyaada baa loo adeegsadaa oo xoogaa yaroo dhaqaala ah oo faraguudkooda la siiyo oo dabeedna haamaanaa waa halkaas soo fadhiista waxaa loo adeegsadaa markaa maanta waxa ugu dambeeya haddaba idin sheegaya xalayto maraan leyf ahaa waligii ka hadliyey ee lahaa cabdiraxmaan ciro waxaad ilowday salebaan gaal maanta uu hadlay ninkii loodhan jiray salebaan gaal anugu nimankan ilaahay baa runta jecel salebaan gaal wuxuu difaaciyey musabixii iyo fikirkii lagu wareejiyey dekedeedan berbera isaga oo la safan musabixii iyo silaayo ayuu salebaan gaal difaaciyey shalay baan ka hadliyey waxaan ahaa war ninkaagan ciro salebaan gaal baa dilowday waa isaga laftigiisu khaayin weyn buu ahaa oo nimankan waxaan la iibiyey buu ahaa talabaad waxaan kulmiye iyo waxaan meel dhexaa ku wareegaysaan nimankani horta waa shirkad bay leeyihin oo somalilandna lagu sheegaya waa shirkad labadaa reer u furan dabeedna iyagunbaa maalaya dadkan kalena waxaa leeyahay ku dhinta qadiyadda kasaaqistaanka ku dhinta qolo waxa loo diray war niminka xitaa isaaqii iskaba daabo daraawiishtii ayaaba xitaa qadiyadda ku dhinta horte waxani ideologigu saasun bay u iri karaan bal ilaah baan ku dhashay ma aragtay nimankii daraawiish qayb ka mid oo koranaya fifa somaliland waradeer somaliland waxay dhahdaa ma jiraan anigu idinkaaban idin doodaayo waa waalantiin oo wareersantiin meeshan waa private company sheegaanta u furan maxaa maanta ka hadalsiiyey maxamuud xaashi wuxuu ahaa wasiirkii ugu qaabilsanaa malaha madaxtooyada iyo wax noocaas maafiyada number 1 buu ahaa ninkii wax soo iibiyey ayaa maanta wuxuu ku leeyahay intuu halkaa soo fadhiistay bal idinku arrinkaa u fiirsa dadka la waaraya silaayo wuxuu ahaa mujaahid buu ahaa wuxuu ahaa arrinkiisu sax buu ahaa oo adiga wax ku weydiinayaba horta adigu kii dembiganba galay baad ahayd oo waad la gashaybe talabaad arrin kaloo sira baan idin sheegaya soomaaliya ninkan maanta halliye la yidhaahdo doqonta horta waa yeelkadeedi dad baa iyagoo xuquuqdooda u doodaysid ay ku soo caayayaanoo ma fahmayaan wax allaalo waxaad ka hadlaysaanay fahmi karin haddaad ku taa waajmaanaadtiin been bay kuu qaadanayaan war annaga cidina nagama xigto sheegaanta annagaad sheegana laakiin soo xaqiiqada iyo runtaanu ka hadlayna runtana ilaahay baa jecel intaan nool ahayna waxaan guddoonsaday wallahi inaan runta bartaa la soo fadhiyo ninkan la yidhaahdo maxamuud xaashi cabdi baa lagu magacaabay ee maanta hadlayay youtubeyadana waa ku arki doontaan waxa uu guri ka samaystay meesha laada ingiriiska nin kalaa ugu magacaaban guri baa looga iibiyey ingiriiska weliba east london bannaankaan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala nimankan waa nimankii lacagta igala qoostay muddadii aan bartaa ka qaylinayay ee ay iibinayeen kuwii maalintaa iibinayay ilaa anigu iminka maan dhalan oo dadkan hadda ku berberay waa kan beejeyga haddaad youtubeyadana ka baandhaan ilaa berigaa waa soo helaysaan samarkiisu waan ka qaylinayay markii dekedaniya waxaana soo baxday okay guri wuxuu ka samaystay meesha lahada london ayaa looga iibiyey ninkani muxuu marka hore ahaa wuxuu joogi jiray london buu joogi jiray dubladuu ciyaari jiray inta aanu maamulkii kulmiya meesha iman ee jeegaanta ilan walaal waxaan uga istaandhaamin wallaahi waxa ka nadiifsanaa oo ka qabiyeelad yaraa oo ka musuq maasuq yaraa daahiryaale ma isku qoran faransiiska buu joogaba waa haddii qabiil laga hadlayna soomaaliya qabiil baa xanuun idinku noqdeen nina anugu kuwanaaba la qabiilahay maanta aan ka hadlayaba ingiriisku wuxuu ku ciyaari jiray dubnaduu ciyaari jiray maantana wuxuu guri ku leeyahay meesha la yidhaahdo london buu guri ku leeyahay xaguu ka keenay soo intii maaha kulmiya meeshanuu joogay ayaa lacagtii ummadda la urursaday lacagtii ummadda inta la urursaday ayaa dabeetana qaarna dubay baa guri lagaga dhistay axmed silaayo maalintuu somaliland u noqonayay madaxweynaha wuxuu lahaa guri ingiriis ku yaaloo quru lahaa waxaanu ku dhaarinayay burcana marka bariga looga baxayo halkaa warshada u dhow laydhkee burcee hore dee imka iibsaday bay warshadii laydh meel daaradoo weyn buu ku lahaa xaguu ka keenay guriga inuu maanta dubay ku leeyahy wax isweydiiya qabyaaladii xanuun baa idinku yimi silaayan halkaasaa guri looga dhisay faysal calawaraabana guri muu lahaan jirin hargeyso kumuu lahayn maanta guri weyn oo bangaraa baa loo dhisay waxaana looga dhisay boobkii la boobayey dhulkan la boobayey ee dadkana lagu mashquulinayay fifa jamhuuriyadda barakaysan gaar ahaan walaal qabiilku anuu qabyaaladu galma jeedo laakiin dadka qaarba si wax ku fahman waxaan wax ku fahmisiinaya qoladan la yidhaahdo garxadka waa waajmaanada iyaguna laftigooda horta dad gooba bay ahaan jireen ilaa imkana waa goobtuna way leecdaa balse ma jabto
dhulbaahanta laftigiisu waa gobtu way leecdaa laakiinse ma jabto kuwana waxaa loo soo diray 3 nin baa xuquuqdooda imika baanu fariinta bartaasaan idin marinaya weligiinba soo wareera marba gidaar ka soo go'a 3 nin baa xaqiinina luminaya idin gumeynaya aakhirana idin diray 3 nin bartaasaan idin soo dhigaya kow waa ninka la yidhaahdo suldaan maxamed sultaan cabdiqaadir waxba aniga igama galan waayo waa ninka maalin baaf ku hadla waa suldaan saldanadiisa dee isaga u taalla laakiinse waxaan ogahay inuu jeegaanta lacagtiisa yar ka qaato reerkana la yidhaahdo adigu madaxa kaga istaag hadday shiraan shirkooda baabi oo jeegaantu adeegsato waayo markay qaylayaan anigu sheekooyinkooda waan hayaa iyo xantooda abiskuul meel lama wada joogo warna iskuma seekana waxay yidhahdeen maadaama aanu hayno suldaan maxamed sultaan cabdiqaadir suldaan inay xirsiqani ninka raacayna ashar waa labay kala yihiin salaadiintu hebel madar nin baa la yidhahdaa waa fariid kaasoo shaqo kuma laha waa ninka la yidhaahdo inay xirsiqani ee suldaanka hore ahaa iyo faysal calwaraabe bes waayo faysal calwaraabe wax magaratadii oo dhan baa dhegaysanaysaba dhaqaala la siinaya ina buuba maanta hadduu hadla la dhegaysan maayo hadduu ninka ina mira hadduu hadla ina mirihiya dee ahaa mujaahidiintan ay sheeganayaan dee la ahaa hadduu hadla cidi dhegaysan mayso saamaynba ma laha markaa ciyaalkan reer dambe iyo waxuu ninka waalaa waxa weeye waa faysal calwaraabe 3 ninu ayuunbaa dabadna loo adeegsanaya la odhanaya war faysalna wuu inoo joogaayo dee siduu doonaabuu u hadla oo isma dhegaysto waa dabeel xagaa maalin xaggan ku hadlaya maalin markaa dadkaba saa khalkhaliyaba wuu ka dee dunidan walaal waa kursaban horta dadku marka dulmigu uu xadka dhaafo ee bulshadu ay xumaato inta xun baa madax noqotaba bal qaybta ilaahay inta tuugtaabaa madax noqotaba waayo dadku markay tusaale ahaan imka run baad sheegaysaa wax allaala qofkii runta ka hadlay ee maamulkan runta ka hadlaba waxaa la odhanayaa wuu somaliland buu caayay waa qof somaliland caayay anigoo qudhaaba maaha xitaa bal ninkuu fiirsada qof baa hadlaya reer waqooyiya oo odhanaya war waxan waa sax maaha sax wax shaqaynaya maaha dabadna waxaa la odhanayaa somaliland buu caayay qofkan waa nigu cadi runtiiba caay bay noqotayba bal qaybta ilaahay iminka maalin dhowto waxaan dhegaysanayay ninkan la yidhaahdo professor cabdi samata xaqiiqu ka hadlayay ciyaalkan brainwashka lagu sameeyey ayaa xagga hoose kusoo hadlayaan waxay ku leeyihin somaliland caydeeda loo soo deema run buu ka hadlay inay cigaal waagiisa uu ka rijaalsanaa nimankan allah u naxariisto allah raxmaanka janno firdowsaa geeyey waayo inay cigaal qof meel warqad ku soo qoray muu xidhi jirin dee waa run taariikh runan uu ka sheekeynaya ma been buu ka hadlayay maxaa horta runtu maxay idiin gubtaa maxaa qofku runta iyo cayda miidaan kala oqon anigu waxba hala kala garanina runtaasaa waxay ku noqotayba cay tan maanta taagan baan dawa soo daadegaya tan maanta taagan waxa weeyaan markii la xidhayo buurmadow waa la isla ogaa buurmadow xadhiggiisu wax la isla ogay buu ahaa waanu iska raaxaysanayay meel habiyana uu joogo xalayna waa la shiray isla xalay inta la shiray baa la warnay maxaynu samaynaa waxaynu ka dhigaynaa buurmadow sidii nin la soo damiintay oo kale cidna ma soo damiino bal la soco wax allaalo wax damiinoo buurmadow lagu soo daayay may jirin buurmadow iyagaa marka horena meeshan geystay markan labaadna iyagaa soo daayay dabeetana waxay ku bedesheen oo muuse markii la wada hadleen sheegaanta wada hadashay saleebaan gaal ha soo kaco ha hadlo oo ha difaaco ceebtan inagu dhacday oo nimankan wadani maanta runtii bay ku taagan yihiin oo tooshka bay nagu qabteen oo waxbay fahmeen ummaddanna meelo badan baa lagala hadlayaa social media baa lagala hadlayaa warbaahintu maaha b b sidan quraynu cunaha saarnee maxaynu samaynaa waxaa la yidhi saleebaan gaalow soo kac dabeedna waxaa tahdaa haw madaxweyne musabixi waa soo halgamay waa mujaahid waa waxyaaba noocaasa okay silaayana waxaa tahdaa wallaahi wuu saxsanaayo waa arrimo noocaaso waayo hadalkii uu jaamac shabeelshalata meel uu ku hadlayay meel fiican wuu gaari waayey waa kan golaha dhexe sheeganaya xisbiga kulmiye warnimo anigu haddaan caawa dhinto run baan kaga dhimanayaa soomaaliya iyo macaalkuwiinan reer waqooyow dhammaantiin isku wada daro wallaahi xaqiiqadaan kaga dhimanaya inaan allaha raxmaankaabaan mar hore waxaan guddoonsatay inaanan ninna qabiila dhinaca ku saarin waxaan ka hadlayo dhan waa idinka xanuun idinku tahay oo qabiil qof kastaaba qabiilkiisa halkan la soo fadhiisanaya anugu waxaan ka hadlaya waxa weeyaan waa meesha waxa ka socda xalay markii la shiray waxa la yidhi horta aynu soo dayno ninka la odhan jiray ilaa haddii kale kulmiye iska qabsanayo waa tii kulmiye iyo arrimo noocaase waa ninkan buurmadooyin dibadda soo dhin haye maxaynu samaynaa maxamuud xaashi oo jifiyaroo hoose isku yihiin oo la maafiya ahaa ninkii la odhan jiray kooxdii kulmiye dee kulmiyana ahaa isagu waxaanba iibinayba ayaa la yidhi soo hadalo waxa taada ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cirro u jawaab war cabdiraxmaan cirro qudhabeed ka adkaadayba waayo runtu dadka way gubtaa way dhibtaa cabdiraxmaan cirro wuxuu ku hadlayay run bay runtuna dee waa kuwa ninkii saleebaan gaal baa la soo dhaqaajiyey hadalo waxa taada cabdiraxmaan cirro soomaaliya la shaqeeyaa
idinkaa soomaaliya cabdiraxmaan ciro soomaaliya la shaqaynayaa soomaaliya lacag ka soo cunay waa hadafkooda ugu weyne mowto dadku khaldaan ideology-ga dadku haystaan baa kaas marka balaaya dhacdo haddii iminka mid iyaga ka mid ah haddii meel bulaacadaba loo go'daba oo uu turunturoodo wuxuu odhanaya soomaaliya jebisay haddii iminka maanta Saleebaan Gaal uu meel ka soo dhaca xitaa tusaale ahaan uu dar ilaahay wuxuu noqon wuxuu odhanaya haa soomaaliya ka dambeysay musabix iminka hadduu maanta lug ka jababa ama gacan ka jabo wuxuu odhanaya soomaaliya ka dambeysay iyagu wuxoodu waa soomaaliya ka dambeysay ileen dadkan wax kale oo ay u sheegaan ma hayaan mowt haddii balaayaba dhacdaba sixir bararku hadduu dhaco soomaaliya ka dambeysay ma odhan karaan war sixir bararkan iyo inflationkan Ethiopia iyo qaadkeedan baa ka dambeysay kuma dhacaan sixir barar baa dhacay wallahi ha Soomaaliya ka dambeysay okay abaar baa dhacday Soomaaliya ka dambeysay tusaale ahaan biyaha Hargeysa ka go'ay Soomaaliya ka dambeysay waa waxa qore ka yiibsamay mowt dabna ciyaalkan dee brainwash lagu sameeyay ayaa wuxuu odhanaya Soomaaliya ka dambeysay war sheegantay de wax kale adeeraya la kaalaya filinkan uu gubtay Soomaaliya ma wax kasta ma Soomaaliya ka dambeysay maxaa Soomaaliya waa walaaladeen weeyaan waa dadkaan walaalaanay laakiin se maanta waxaan maxaa ku bedelateen baa meesha taan bal maxaa ku bedelateen DB Wall hal wiish oo qura hal wiish inta iska deysaan Soomaaliya aan ugu mashquulinay war hal wiish hala ku soo qora ومعك يوتيوب يدي قاعد يجلسون دونو كوسوقرا دي بي وول هل ويش أو أنا بتلقوا تشيو أما لقوا صار بربرم ما كانت إلا سنة دي بربع يمكن ما تشوفها ده هو ما يكين والله هو رم بانك هلا إن أنا هل ويش كين إن أنا كين بانكوري هل متر إن أنا كودرين وبربرو سديدية أو اللي بيقول العقل يا قادنا يبا هدي بربرو وخنا قطنا وحرنا يا سوماليا كدم بيس هدي إسلام قفعضوا وسوماليا كدم بيس هدي السحر بركو راشدو كعود سوماليا كدم بيس هدي المعارضة هالله ها سومالي ولا شقينا هذا أنا نقول عبد السلام هالله سوماليا كدم بيس سوماليا أنا قدر فرنسيس بندي شو قال أنا سوماليا أنا ومش شقيو ما أنا قال لكن حقيقة كان ليا ما أنتنا أرين كالو سيداي بهور برمدو وحيا هيد أرين مركو هربا رياض كذا شيء إيه بورس كوكارين شيء برمدو تشرى توحل حيسته هلوجو دشيو حيسته بهلوجو دشيء حلا يبدي بلوش شري قار هبر شعاد إسكدي سنو يقول حنا نقول برمدو وقام مطهر هذا ماشي هذا عيله فوينيو برعاية وإحنا عاصا تبنا وحلده نونيك الوضع جالس كسودين تبنا محن رهنا بل هدات ولقينا لين تب أو تم بيسوي حبها هيك قرنا برمدو سلامة حتى من بالو كسوداي هدي محكمة لك يا يا هدي كيس لقو قبطي للشيء ولقينا لين ميل بانك سو هذا دونارو مربى ميل بانك سو هذا عبد سنة تمام بلد هذا ليه ما مسيه هدي أنا هدي أبسوق قتال ولقينا لين وحبها هيك قرنا صنع تبي بيستو أحمد سعيد جمهور الله هذول اسمه لاين ويدي واحد كنت على محادة يقول أنا واحد دنبيا لك ما هست ورنتي بس يا ورنتي نوش يا لكن وح الله لو واحد هل ويش ولا ماله بكردي هل ويش وحويان ويشش ووحن وحنا وحنا نقول دشيء قف بالك أيوة سكر يا أحمد لقمة سكردي ورنت الدول والدي إمك هذا عبد صالح هل ويش بربر لقمة سكردي أو إمارات كان يعني كان اللي هذا الله مستعان إن بي والكمية سكردي سومالان بنعاي وعقل جيك رشدال كامرس سومالان بنعاي فقش بانهاي وحنا هي عدو لصودري دبادلف بانهاي ورهم بانك عليه ما دبادلف بانه هذا أنا ده دكتور بربر إلا أنا قاله هو دكتور دي ويانا سومالي بانهاي إمارات كان يدي بيونا إلى ما له مركي يدي بيونا يتسمي إلا هذا هو حي بربر كسو كردي سوا محي بلانقات إنه واندين شريعة وحنا على واحد بلانقات ده ما أنت واحد كهير كلمة واحد ترى markay berberay mariyeen waxay yiraahdeen waxaanu sameeynaa wax la yiraahdo meerki suuq baanu ka sameeynaa meelaha moolka oo kala adiga oo taqaanaan dabcan dadkiina dunida kala jooga ama business center oo kale ama complex weyn baanu ka sameeynaa ma laga sameeyay lagama sameeyn waxay kaloo yiraahdeen shaqaalaha waanu kordhinaynaa waliba waxaanu sameeynaa bay yiraahdeen shaqaale reer berbera ama dadkan waqooyi deegaama reer Soomaaliya cid doonaan baa noqdaan ayaanu qaadanaa waxaanu geenaynaa dekedaha kale ee meelaha kale aan ku leenahay ee ka shaqeyn sida Djibouti waa laga soo riibay meeyeen sidoo kale waxay yiraahdeen Allahu musta'an meelaha free song ayaan horumar ku sameeynaa wax noocaas may sameyn wax allaala waxay qabteen oo aan ka ahayn lacag yar oo xaquuqan laga qaato dabadna guri lagu kala iibsaday oo silaan guri looga sameeyay meesha la yiraahdo Dubai meesha la yiraahdo Allahu musta'an ee ala dhismihii baa socda waxa lagu qanciyay TV-gooda yar baa soo daawatay beenalaha anigu waan kula fahmay mid wax kulaalka
dhismihii baa socday de waxaa daawatay TV-gooda la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa radio Hargeysa iyo wax noocaas iyo TV-ga beentu soo dhigaystay waxay yidhaahdaan waxaanu geenaynaa meesha la yidhaahdo ayaanu waxaan shaqaalan qaadayna may qaadin intaas oo mitir baanu ku daraynaa oo dekada ku kordhinaynaa kumay kordhin waxay kordhiyaan daayo waxaabay sameeyeenba inflation sixir bar baabay sameeyeen marka shanta galabnimo ay tahay ay intay lacagta qaataan wax allaala wixii lacag ka soo baxay meesha berbere ee dekadani ka soo baxay oo leen ay marka hore ku qaadayaan ay suuqa Hargeysa soo geliyaan berbere dabadna dollarka urursan dollarka markay urursan waxa ka dhasha sixir bar oo dadka marka horeba sixir bar la daala dhacay oo qaadkan Ethiopia lacag far badan qaadanay ayaaba sixir bar labaad inflation labaad ayaaba lagu sii reebay ka hadli maayaan cid ka hadlayso oo ku dhacaysa waa nimankan af wax cunay xushood meel oo baxaana ma haystaan taas waa qodob waayo waxaad aragtaan dadka deegaanka akademiga baan la hadlayaa maalin kasta wuxuu yiraahdaa guddi baan magacaabay sixir barka dejisa okay waa laga beerbeeray sixir barka marka waxay yiraahdaan waxaan ku dejinaynaa telesoman cunno qabateen saarno dahab shilan waxaan ka xidhno wartada maaha waayo meel aan loo baahnayn bay jafayaan qar kale la jafaya qar kale sixir barka waxa ku dhinaysa waa DB1 iyo qaadka Ethiopia hatta doonaysaan inaad sixir barkani waxaan dadka ka jabisaan hadii kale wax kasta oo increase wax decrease lahayd ma jirba wallahi daasada caanaha ilaan dadkan masaakiinta lama eegaye waxa uu leeyahay intaana waxaan iman la yiraahdo DB1 qofka deer raaxaysanaya weyd raaxa joogtaa ku dabaalataa webi maba oga waqtiga dhacay meelaha markay joogaan dadkan de qurbaa joogay meelahan ka hadlaya iska ama ay dhaqaadanaya ama Yurub jooga ama Mareykan jooga iyagoo xamoogaba warbal dadkii gudii joogay la hadla daasadii caanaha $20 bay maraysa DB1 intaana mar $12 bay maraysa wax ku sii kordha mooyaane wax ka dhacaba ma jiraba marka ma qabiyaalad baad maxaa difaacay wadigan hor dadkaagii way baqtiyaan nimankan dadka cunay bay ku dhigeen wax allaala wuxuu kordhayaan ma jiro qabiyaaladaad talabaad waa dadkan qabiyaalada ku yintay haddaad si kasta ugu akhriyo salaad buu tukanaya masaajid buu ku sii socdaa qabiyaalada ku yintay anigu reer hebel baan ahay mar haddaan sheegaanta ahay waan reer qansaxnahay kan kalena reer qurac yahay war maxaa reer qurac iyo reer qansax maxay tartaa qabiyaaladu maxay tartaa waa maxay soo kordhisaa haddaad qiimo leedahay maxaa xuntigan kaa dhigay maxaad aniga halkan aad igula dhuuqaysaa calankan Soomaaliya yaad marna dadka u caayaysan qolyahan baa la hadlaya cayaanka ay meelahan ka qayliye bal calankan Soomaaliya iyo ka Faransiiska la barbar dhiga halkaas wax ku qaadanaya marka dadkan brainwash lagu sameeyo walaal waqti badan kuma lumiye waa halkaas wax ku wada qaadanaya halkan ay la wada joogaan ordo Ethiopia noqdo ki Ethiopia soo qaata oo ki Imaaraadka soo qaata oo dabatan ki Imaaraadka soo qaataan imaaraadnimo ku dawarsadee iyo Ethiopia-nimo anigu sharafteedii calankayga iyo qiimahayga iyo Soomaalinimadeeda wax ku cunaa ku ciisha Allah raxmaanka baana ii dooray taasun baana imanaysa taasana la isugu tagaya dullinimaduna waa dullinimo wadiga soo tahriibaya badaha ku daadanay aniguna waan kula daadanay qarannimo wax lagu waayay wallahi inaan qabiil lagu helay qabiilna waa ka maanta inftadiisa arkan intii habar jaranta halkaas soo wada fadhiisatay beenta iyo xaaraanta difaaciisa وتصل أحياء قبيلة وإحنا نركشنا أحياء وطني من نركشنا سما أحياء قبيلة سليمان قال بس صورة قاتس وحي صورة قاتس محمد حاشية وحني هذا الكيو قرأ هاي اشتريت هذا الكيو يري نكي لورين شري الله مستعان عبد الرحمن عمرو أيام ميل كستبا لده السود ده يورتا بورمدو ينا نقص قدرنا وهل لده ولا صوت منت يا دمنتي cid allaale cid damiinatay ma jirto waa been haddaad aragtaan burmado oo maxkamadda soo dhigana weliga iyo laha arki maysaan iyo kiis lagu soo oogay inantii maxaa loo soo deen waayay naciimo qoran di Soomaaliya cid lagu eedanay isaga Soomarka hore oran Soomaaliya oo Buntland anigu Buntland Soomaali baan u aqaan Hargeysana Soomaaliya aan u aqaan Aburcana Soomaaliya kiiska maxaa uga dhigaysan waxa uga dhigaysan ayar ka soco qofka anaga qabiilada nala soo galay kiiska maxaa uga dhigaysan waxa kiiska uga dhigaysan Soomaaliya Soomaaliya buu yiri ciidamada hala kala qaado oo tukarraq ciidamadan hal uu kala qaado tukarraqna waa Soomaaliya garowna waa Soomaaliya laascaanoodna waa Soomaaliya soo inta ma yahay bil ilaah baan ku dheershadado ma foortan kiiskaas ay dhamaan kiis uga dhigay inantan naciimo qornana waxaanu kiis uga dhignay bay dhahdeen
muqdisho ay ka tiri Soomaaliya midnimadeedii iyo dawladii Maxamed Siyaad Barre waa loo darsaday de waa runtii waa loo darsado dawladba dadku way kala shaqo tagi jireen oo saxir bararka ma jirno deegaanku wuu wanaagsanaayo dalku barwaaqo ahaa nabad buu ahaa ma sha Allah maanta dadku waa ku quxuuntina ma jirin dad meelaha dawrsanayaan ma jirin maxaa markaa Buurmado loo soo daayay haddii ba isku kiis ahaayeen Buurmadona maanta waa la soo daayay oo waxa lagu leeyahay de marka hore muu xidhnayna naciimo qorana wali way ku jirtaa way soo qabyaalad qaawan maaha sumaha qabyaalad aan geedna loogu soo gabanayn waa ka caqliga wada garashada waa sida saasan ixtiraaf ku doonina sidaasan dadka ka horreeyna qabyaaladeeda saan la qurux badan qabiilka axyaa qabyaaladeedu waa taa taanu nahay sheeganta anagu saasan u dhaqanaa Soomaalideena barta qabyaaladeedu waa taa Salmaan Gaalo mujaahida baa noo jooga waxa noo jooga ninka la yiraahdo ina xaashi hadda gabigoodaba waxay ahaayeen bal niyo talabaad waa dadka marka la duleeynayo waa noocaas oo kale ninka la yiraahdo Salmaan Musabbixi dhamaan groupkan isku team bay ahaa waa Salmaan Gaalo wasiirkii maaliyaddu ahaa markii dadkan la dagaalamay qoladan abtiyaasheegan lagu qanciyo kambeliga ilaaliya ee waajmaanada ee la yiraahdo FIFA mideen qadiyada ku dhinta qadiyada weligiina saaladeen halidin adeegso Faysal Waraabe Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir ninka kale la yiraahdo isagana Allahu musta'an ii sheeg ina xirsiqani waa tabta waa bayntaada maanta ba hadal halasho calankaaga qaado oo calankaas wax ku noqonaysaa calankaaga sido kuwiina maca qurbaa jooga calankiina maxaa uga baqanaysaa su'aal kalena waan weydiinaya waxyaabay ku doodaan waxay koranayaan qadiyada Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland ma Musabbix iyo Salmaan Gaal baan uga tagaa okay oo kan yaad uga tagtay haddaad ka leedahay maxaan uga tagaa kan yaad uga tagtay waa intii Siyaad Barre ay lagu eedeynay loo oran jiray Siyaad Barre waxa sameeyay caburintii maanta way socotaa caga juglintii way socotaa qabyaaladii ka sii daranba maanta bay oodaa sii goosatay maanta xitaa wuxuu magacaabay qandaraasada qaranka yuu dhiibay min yaro sheegaanaba loo dhiibay oo sheegaanima loogu dhiibay waa gudoomiyaha qandaraasada waxa la wixii qandaraas oo dhanba qandaraas arkiba ma isaan waxyaabaha la idinku qancinaya xitaa wax yar u dhow qandaraasadii kuwaas loo dhiibay sheegaanta maanta qaatay qabyaaladii halkii bay ka sii socotaa caburintii bartii bay taagantay gaajadu ka sii daran sixir bararku sii laba jibaarmay marka ayaad uga carartay calankaaga maxaad ku adiga ku dhaado dadkan qadiyada ku dhimanaya oranaya qadiyado yaan sheegaanta ahayno maxaa calankiini Soomaaliyeed iyo qarannimadiini Soomaaliyeed maxaa ku bedeltay ilo qoxoontibaadkiin waa soo tahriibaysan waliba idinka waxa idin dheer caburi kala idin dheer shirkadihiini aakhiraba loo dirayaa meelaha yaree dufan kale waa la idinka ilaalinayaa laba group ay baa meeshan haysto groupna de iyagu shukaantay haya waa groupkan maanta reer Gibile qoladan kalena way kulaalaysaa dherigo qolana la faay kala baxaysa qaar kalena way kulaalayaan iyaga ku heshiiyay tan waa shirkadooda xaqana qoladan beesha bariga burca dhinacan ka taagan dhinacana kuwana ku dhex jira iyagu markaa way isku heshiis bay ku yiin dadka aynu boobno inteena dawliba madaxda meelaha sare magaran haysta hala boobo sheekada markaa maanta hala ka socota waa taa waxaan soo noqonayaa hadaba horumarka dalkeena ka socda taanu dadka aday qaadanayaan ha qaataan hadii kalena iyaga u taala barta iskaga jiraan way maalmeed iskaga jiraan waa dad dulmi baa la doonaya in dawladdu ku noqdo hadad ku taado okay adiga hadaynu beeshan dhaxanahay xuquuqdeena ma sha Allah inay Soomaaliya dhibaato noo geysatay ama de sideedaba ay wax dhaceen waabana laga xaal marinay laakiin se ka warrama dadkan Sool iyo Sanaag iyagana xuquuqdooda aanu aasan aynu leenahay gar iyo gar daraba waa Soomaaliland de ma aha way maamulo kala jiraba waxa jira maamulkan la yiraahdo Khaatumaysteeda Soomaaliya isagana aqoonso saaduguma maamul u tahay sheegaan la yiraahdo sidoo kale maamulka la yiraahdo Maakhristeed de isagana aqoonso ilan waa dad kula mid ah oo ninku dhisinaan adna buris reentiisa waa kii hadrawlaha way nimankan waa niman saada kula fikiraya waa rag weeyaan deegaankana iyagu Ingiriiska adiga kuma calaamadin Sool khasabeen ku haysana sidoo kale nimankan la yiraahdo Awdalsteed de aqoonso iyaguna dareenka shacabku ma ogolo Soomaaliland goonigoosad ma ogola way ku ogoliina adiga kuma nibca qofkii hadlana hadii la yiraahdo Soomaaliland buu caayay taadar taasoo aqal noqonayso garashana ma aha talabaad maxaa kalsoonidii naga kixiyay nin bilaa kalsooni oo kalsoonidiba ka maqantay taa waxa la ka dareemaysaa nimankan inaanay doodi karin waxa weeyaan oo aan isku kalsoonay kalsooni daradana waxa keenaysa waxay ogyiin doodan hadii la doodo in laga adkaanayo siba looga adkaanayo hadii la yiraahdo maanta tusaalahan war Soomaaliland ma waxa le beesha dhexe
maxaa qof beesha dhexaan u qaylinaya maxaa beesha dhexun u difaacaysa iminka tusaale ahaan maalintii dhaweetay xitaa BBC ka hadlayeen dee afartii la isu keenaba beesha dhexu ah dadka maynu waalayna sunnigan qabiilka weliba masaynutin maanta qabiilkii kasii tagnay ayaynu qoys yaroo hooseynu maraynaa dee doodiinuna ma soconayso waxaas oo dhanna wuxuunbay soo afjarmaysaa maalinta soomaaliya inay noo degto waayo sool iyo sanaagna soomaaliyooday ku biirayaan cududna laysku haysan maayo dalkaygana waanu ducaynaynaa idinkana cidina waxba idi yeelmayso dadka shacabka waa la jeceliya reer burco iyo reer hargeysa ummaddu way jeceshahay laakiin afartan maafiyada dantooday wata waxbaha ku xiiqina waa kaasoo saleemaan silaayana guri weyn baa uga dhisan dubay walaasus kaga raaxaysanayaa nina xaashigana guri baa ingiriiska looga sameeyey berigii horena dowladdu ciyaari jiray oo ku ciyaari jiray ladhan saleemaan gaalna guri baa u qorshaysan dhaqaalihiisina meel buu u yaalaa marka haddii cod la qaadana dee dad kalaa bay naga badan samaroonna ma haysan karayno maasha allah nimankan la yidhaahdo dhulbaantana iyaguna dee idinkuma soo dinkan qabiilka u ogolaada marka hore horta somalilandtanaad sheeganaysaan iyo deegaankani dadkan khasab ku haystaan ogolaada in meeshan dadinla degayn ogolaada in dadka inaguna dad dhibaato ku hayno waayo qabiil banu qaran iyo qabiilna waa kala laba maalinta wata maxaa BBC isugu keenay waa xuseen caydi waa xaafadii waa ninka la yidhaahdo allahu mustacaan dadkan meel hoose eegayaan waa ninka la yidhaahdo saad cali shir anu meelaha waan ka horreeya in badan saad cali shirna waa xaafadii xuseen caydina waa xaafadii dr congo dubay kasoo hadlayana waa xaafadii inankii hebel raxmaan ayaan iska hubinaya ee BBC ka dhex hadlayay isaguna cabdinuur la joogay la daadinay kaana war haddaa garanaysaan bartaa igu soo qoray anugu kuma dambaabiya laakiin saddexda kaleba waan garanayaa marka dee qabiil haddii wax lagu noqonayo dee waynu arki doonaa bal dunidu ay qabiil naga iibsanayso qabiil baa inaga waayo wax allaala waxay safiir dibadda aad ku sheegtaan oo dhan waa qabiil waxaan difaacaya waa qabiil salamaankan difaacaya waa qabiilkiiun waa qoyskiiun muuse waa qoyskiiun kan kala haystaan isaga laftigiisu waa qoyskii laakiin isagu runtii uu sheegaya de oo ciro maanta runtuu ku hadlayaa runtii ayuu maanta ciro uu ku hadlayaa markaa walaalayaal wax qof dee xanuunsanaya oo dulmi isku raacay dee waxma sheegayso markaa ummadda soomaalida horta waxaan leeyahay waxa guul iyo gobonnimoa oo bartaa kusoo qortaan fifa nabad iyo nolol shalayto waxa aynu guul ka soo hoynay hay-ad laahdo international monetary fund wasiirkeena dhegta baylina bartaa waxay kusoo qortaan isagu waa nin reer waqooyiya fifa dhegta bayli waayo deymankii ama IMFT waxay caddaysay oo ay sheegtay in soomaaliya deymankii laga daayay hanaankan maanta maaliyadda soomaaliya u socotaana ay transparent tahay taaqudheedu la iskama gaadhin dadaal bay ku timi dadaalka dowladda nabad iyo nolol bay ku timi waxay ku timi wasiirkeena maaliyadda finance ministerka ninka lagu magacaabo Dr. Bailey allah raxmaanka hadday waxa wanaagsanna maasha Allah dhaho mabruuq oo dowladda nabad istaaga taas waxa weeyaan waa guul iyo gobonnimo oo waa guul inoo soo hoyatay oo wasiirkeena suna uu ku amaanan yahay wasiir Bailey allah raxmaanka haddayo oo noo karaameeyo waxaanay ku timid siyaasadda uu qaatay wasiirkeen madaxweynaheena maxamed cabdilaahi farmaajo iskama iman kolley marka ciidanka la shaqeynaysa ama dadka la shaqeynaysa hadday dad nadiif yihiin hadday dad horumar sameeyay yihiin hadday dad qalbigoodu xaadan yihiin aduguna horaad u soconaysa laakiin haddaad walaal ku dhex milan tahay dad qabyaalistay ah oo quruna oo aan fishin lahayn oo aragti dheer aan lahayn aduguna dib u socod sidoo kale waxa guuliyo gobonnimo ah runtii ciidamadii Soomaaliya oo aynu maalin kastaba arkayno ciidamadii oo la dhisayo waxaan la dir xaqiijinayaa oo xaqiiqa 2019 ciidamo ku filan gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose Allahu musta'an meesha gobolka Banaadir oo Soomaaliya leedahay oo waliba dhalinyaro ah oo saraakiil ku xigeen leh oo la ciidamadii kale ee xidiglayaasha leh oo darajooyinkooda leh oo maalinba maalinta ka dambaysa dalkuna aanu soo noqonayn taasuna waa guul iyo gobonnimo oo wax aad iyo aad loogu farxo oo qodobadaas bay ka mid yihiin walaalayaal maanta qodobadan inta ugu faraha badan leh aan halkan u soo galay waxa weeyaan dadka la yiraahdo reer Dubai oo iyagana dhibaato fara badan imika la soo wajahday oo halka ayaguna yiri dawladda fariin bartaan noogu maray waxa kale oo anigana ilaaway oo nimka xasuustay reer gaalkacyo dadka reer gaalkacyo oo iyaguna iga codsaday inaan halka fariin u mariyo u baahan in la soo gaarsiiyo radio Muqdisho hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا ولا الله يعيسك والواحد بدنا قاعدين يتركون ها ولا لايف بان كجرا ما لا سocotana ما والله لا تكلم مصعب way marka la hayno hata dawal Allah يعيسك لايف بان كجرا hado dad baan u هاي codkaaguna uu iga gaamay adigoo iga raaliya tikid baan rabaa in ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigo waxaan kala socdaa dalka Holland hoolan bay kala soo hadlaysaan anigu baa ku maqlay walaalo niyo ma garanay mobilka codku dalacan yahay adiga dhinacaaga codka gaamay hore u galo inoo soo gaago walaal qodobaan bartan ku qortay baa iga kala lumay ba laakiin hore u galo walaal okay hadii la yiraahdo marka WhatsApp ku soo qoraya marka tikidkayga oo dhan bad hadii la yiraahdo aniga waxaan ahay nin Soomaaliyeed taageersan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo waddanka ummadda Soomaaliyeed inuu dalkayga kala dambeyn iyo qarannimo iyo dowladnimo uu helo oo aan taageersanahay dowladda uu madaxweynaha ka yahay ilaahay xafiye maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay xasan cali khayre anigoo taageersan oo nin muwaadin Soomaaliyeed ah oo weliba dhalinyarta cuslaasan aan ahay oo gaadi dhalinyarnimada ka tegay gaadi duqnimadana u dhow ما شاء الله الله يعيسك أبان كان نفس الحمام كده بقولكينا لكم قليل waxaan soo jeedin lahaa aan u sheegi lahaa shacabweynaha gobolada waqooyi degan sida ay bannaanbaxa ugu sameeyeen maxaa la yiraahdaa boqorbuur madow inay gabadha walaasheena Soomaaliyeed ee yardaada yar ee iskiinka ummadda Soomaaliyeed u soo kacda ah moraalka laga dilaayo in iyagana ay u kacaan ay iskugu duubnaan bannaanbaxa gudaha waddanka gudihiisa ay kaga sameeyaan la tuso ayaan jeclaan lahaa waa qodobtaas waa nacim abwaana nacimo qornaaleed dadku waa inay u kacaan abwaana ima qorane waa si fiican waa maqlaysaan bulshada Soomaaliyeed intaas waa qaaliya ma sha Allah ha loo kaco walaal ha loo kaco intaana markasta inaan ilaahay romaanka iyo maskaxda baan ku hayno waa run marka insha Allah khayr baan aan fikraya buul wasiir dinaya taas nidaamka ku wadan halkan waa ku siinaya dadkan dowladnimada iyo nidaamka jidana waralkayo aku dayeen oo sababta ah in aad tuutaan alimid laakiin in loo caqliyeeyo oo waxa degooda ay ku maqlaan maalmaha kamid ah ilaahay soo hadeyn kara waa runay waa maasanta waa alle cadowga shaqeynta soo xama maqlaan Allah soo hadeeyahay wala عليكم السلام عادي أدو مهسيهاي طبعا ودنيا Soomaaliya holan nagala soo hadlay waana runtii kuwaan loo caqli celiya way fiicantay laakiin waanay maqlaynin boolayaal qofku marka dhaqaale badan uu la siinayo oo dhaqaale de lagu burburinayo dalkiisa oo basaasi jawaasiistu ama jawaasisnimada waa wax dunida ka jiraba laakiin waxa ugu daran ninkii loo jiray Hitler baa wuxuu dadka waxa ugu liitay ninka ka qayb qaata duminta dalkiisa ee la yiraahdo dalkaaga dumi ee waliba uu heelan kaas badda Soomaalidana maanta uu nagu farabadin waliba social media bay nagu jiraan qaar maanta dalka hadii la yiraahdo dumi dhaqaale badan ku qaadanay inanta nacimo qorna walaalay yeeynaan ilaawi waxa kale oo aan bartan anigoo chance-kan uga faa'iideysanaya rabaa dad fara badan qaar telefoonka soo garaacay qaar bartan ka hadlayaba horta nin isfaanshi waa riis lugtay mahmaa baa tabi mid kale ka daba tabi hadii ay ku moosaan xuura mid kale mahmaa fog baa tabi hadii ay ku moosaan kartaa la isku muuja Allah u naxariisto waxa lahaa ninkii loo jiray yamyam Cabdiqaadir Xirsi yamyam ayaa maansada odhanaysay adigu oraahda odhanaysay maxay tahay nin isfaanshi waa riis lugtay ayuu soo taaka ka dabiil waxaan uga socdaa dad fara badan baa waxay leeyihiin cabsalaan jitama waa uu guursaday waa run horena waa uu guursaday imikana waa guursaday ma sha Allah Allah raxmaanka hay barakeeyo oo ha karaameeyo oo aamino dhool Allah raxmaanka hadaay maxay leeyihiin waxaan ka raysanayna waliba waa ku yahay waxa laga yaabaa xaafadiyo isma faananayo laakiin dadka ay kala taariikhduna way noqon doontaa idinkana way noqon doontaa wax badan marka waxa dhahdaa Allah musta'aan niyo hatiiba uu guursadayba waraniga dad saacadan dadkayga la hadlo waxbay ugu qoramayso gabadheeduna waa mujaahidin iyada laftigeeda tan dambean guursaday ma sha Allah raxmaanka hadaayay way rijaalad maaha mid ku mashquulaysa cabsanaan baa live soo galay iyo waxaan kale iyo hadalkan aan ku hadlayna iyada qudheedu waa wadaniyad xalaal oo dhaba Allah hadaayo marka waxay ku mashquulayaan wartolo cabsanaan miyaanu idin waabay geer reesteenba war amistira live nin kasto qabiilina aniga ka qolaada inta qaar ka nool yahay usuusigii wadaniga inta aan wax kala qabin marka aanu dalkaygaan u hadla dadkaygaan u hadla idinkuna waxa ku wareegtaan talo muu idinka muusan samay xaqiiq kasta bartaasan soo dhigaya inta nool dalkana waxa ku guuleysan doona dalkuna maanta uu guuleysanaya insha Allah taala nabad iyo nolol soo noqon mayso waxaana dalkan qabsan doona inta wadaniyada leh inta dadnimada leh
inta dowladnimada jecel inta qab kale laakiin kuwa bilaa qabka ay qabkooda hooseeya meelahiina weelkiina iska xala oo meelaha qabyaalada ku mashquulsanaada iyo qoloqolada iyo qurunka iyo waxa ku mashquulsanaada anigu waan ka sareeyaa saaxiibayaal waxbana hay u soo xiiqina marba horena niyo tolo munasta iyo muustanayo adar awal horaba nolosheedana waan watay imikana waan sii wadanayaa taasaana iga go'an waxba sidan kale waajib baan iga saaran dalkayga inaan ka hadlo ka duminayana fartan soo ugu fiiqaya waa hebelka iska ilaaliya kaasu ma aha nin dalka nafu haya iska ilaaliya dowladdiina markastana waxaan leeyahay dadka dowladnimadiina dowladda Soomaaliyeed waxa weeyaan dowladnimo geeyigana badbaadisana wax ku jirta dowladnimo qabyaaladna horumar lagu keeni maayo qabyaaladu waa qurun diinta sheegtay qofka qabyaaladaystaha waa xanuun kuwa xanuunsanaya walaalayaal meel uga soo jeesta qabyaaladayaashu horumarna ma keenaan waxaan nicibin qofka wanaaga ka hadlayba wanaaga guba dadna kun magaco xun bay ku sameynayaan kun waxaaso warsay maxamed cabdullaah xasan allah raxmaanka ajna firdowsaha geeyay maanta su'aal baan weydiinaya Soomaaliya kun jeer hore weydiiyay dadkii ay sayn maxamed cabdullaah xasan sayeen la shakhsi buu ahaa isagoo baa anagana maanta wax ku farxsan dalkayga hortayna nabadeena loo hogaaminayso waan u duceynaynaa hadalkayga aan ku taageerayna ducada ummadda Soomaaliyeed oo dhan ugu sidana waan ku taageerana maan oo dhan ba muddo leedahay allah raxmaanka ha guulay waan guulaysanay ra'iisul wasaare xasan khayre iyo madaxweyne maxamed cabdullaah farmaajo ninkii la oran jiray sayn maxamed cabdullaah xasan dadkii ay sayeen jawaasiista ah ilaa weligoodba jawaasiistu way jirtay ogaada firkoodii ba maanta nool wali firkooda weynan nool waa markii gobonimada la doonayay 60kii meesha hada waqooyi qaar baa inta ingiriiska u tagay badan gobonimahan sinninba annaga iska ka haysa sidoo kale dadkii ay isaga haysteen magacoodii ma garanaysan sidoo weyn oo garanaysan maxaa Cabdullaah Xasan waa taamcay la amxaaradii ku faanaysaba ee oranki sheeganayo kuwii kiisaga ka soo horjeeday ma la garanaya dulinimo shaqaysta sayidkuna wuxuu shaqaysanayo gobonimaduna ma sha Allah marka sayidkii maxay ku lahayd waxa halka dhidronku iyo kala kala soo qorin kastaan waxaan ku mashquulin marba saa yar buufiya yar taabtaan way hadalkayga ku dhibanayaan sayidkii maxay ku lahayd waxa weeyaan waa beenaale wadibu soo hadii suguna gobonimadu u dagaalamay waliba waxaan aaminsanayn sayid maxamed cabdullaah xasan in dad fara badan ay gaaloobi balaayeenba hadaan ilaahay inoo soo diray muxuu la dagaalamay gobonimadu u dagaalamay waa kii hal abuur oo dhan uu qiray maalintii gobonimadii la qaatay nin kasto hal abuura oo ama abwaanaha oo suugaanyahana oo kuwii gabayada ku sheegay laha ilaahay maanta musiidka noolaada gobonimadii uu dagaalamay waa tan maanta timi iyo sharafti ninka markaa walaal weligeed way jirtay mid dulinimada jecel oo amxaarada jecel oo maanta xitaa warar kale aan maqlayo la soo sheegay magaaladeedii burco horta amxaaro kuma ladi doontaan waxaan ogahay kacdoonka socda ee dhalinyaradu bartaa ka wado insha Allah taala laakiin se waxaad amxaaradu awal horeba hargeysa anigu ma oranayo burcay qabsatay oo burcay awal hore fikirkoodu ka shaqeynay oo qofkii diideen waa lagu soo qabanay cabdimaalig maanta mar laha ka arkay adigana walaal guuliyo gobonimo afiya masaax markastaanu cabdimaalig fikradaha qaar waan ku wada soconaa runtii way u arkaya amxaaradan xaqiiqada fiican cabdimaalig sheekh musaacid oo ninka la dhahdaa runtii xagan amxaarada wuu ila arkaya way maanta burco waxay ka sameeyeen meel yiraahdo waxa la yiraahdo mala jeeliyadii wax noocaas qaar ba waxay ku leeyeen waa dalo waa qunsuliyado caasimadana waxay ku leeyeen safar maxaa caasimad keenay ma caasimadana kala sameeysan caasimadda Soomaaliya waa Muqdisho ilaa burcaan lagu soo gaar maxaa ku xigi doontaa hadaba in kalaabiyinta lagu sameeyo oo deelanagu muslim ban anigu halkan maanta waxaan heer baan leeyahay waxaan doona kama sameyn karo Faransiiska gudiis waxa la waxaan doona kama sameyn karo meelaha qaar ma gali karo xiriyahooda militariga ma gali karo arrimahooda gudaha ma sii dhex gali karo xayndaa bay qabanaya laakiin amxaarka maanta burco kula soo degay bal waxa ka qabta hadhow adiga ka soo sheekeen doona laakiin se qoosan ma inta dunida ra ku nool yahay la qoosan ma Soomaali inta qaar uun ka nool yahay qoosan ma dabadhilfkan weligiiba iska badnaan doona kumana leedi doonaan inay burco ka samaystaan say doonaan u galaan oo ay meela ka samaystaan waa waxaan dhici doona bartaasaan kala hadlayna cabdimaaligna waxa la barta algin ka wad way inta wanaagsan ayaa ka fara badan inta xun nabi nuux alayhi salaam 5,000 oo sanadood buu waday dabcan wuxuu waday 5,000 oo sanadood ayuu wacdiga ku waday ummadiisa marba allah raxmaanka oo lahaa ma ilaahay dadkii sidaas bay sameeyeen wuxuu ilaahay ugu cilmi wadkir in dhikra tanfa'u almu'minin adigu waani un ku wanaagsan bay waanada qaad doonay iyo watiyaha udna waaciya ma sha Allah marka inaguna waan wadayna inta nool wadaninta kalena waxa la bartaa ka wada qof kasto wadaniyo Soomaaliyeed
واجب baa kaa saaran ilaa Kismaayo from Ras Caseer to Ras Gamboni waa inaad ka hadashin hadalkeenaasu dad badan oo foorraba wax dareensiinaya waayo maanta qaar burco jooga ma ogaba walahi aan been idin sheegan waayo dadkii FM2 way ka soo xidheen meelo badan way ka soo xidheen yaa ogba dabadna waa in inagu bartan uga sheegnaa qaar baa burco jooga maanta iyo hareeraheeda ayaa ku bara wada ku taado waran xaara maanta laga sameeyay jaaliyad ka samaysto xafiis weyn markaasay baraarugeen ma aha dadku qaarna iska qeyliyaan qaarna waxba war ma hayaan qaarna nimankan un bay wax ka dhageystaano beenta nimankan oo qori dhageystaan inaguna runtii bartaa ka wadeena ummadda Soomaalida waxaan leeyahay guul iyo gobonimo ma sha Allah ha 950 sano wadi inaguna insha Allah taala waan wadeena waayo maba fogaba wallahi Soomaali guusheedu ma fogaba waa dawladdeena soo guuleysata ma sha Allah iyo Soomaalida iyo nimankan afshaadeen oo iska saarno iyo hubkoon iska dhigno waxa kale oo guul iyo gobonimo oo iyaduna maanta sharaf ah ummadii Soomaaliyeed iyo waliba gaar ahaan dhalinyarada oo qabyaaladii ka baxaysa oo runtii qabyaaladii ka soo yaraanayso waliba gaar ahaan waqooyiga intii iminka suntan lagu buufinayay wax dhalinyaro badan baa wax faantay oo waxay ogaadeen nimankan inay maafiyiin oo xaqiiqdii la darsay oo maanta xaqiiqdii ogaaday taana ku farxa xaqiiqdii waxa la ogaaday nimankan waxay ku soo celinayeen 7 sano 8 sano been ku celinayeen beentii baa banaanka u soo baxday waa guul kale oo waxay arkeen dhalinyaradii inay dhalinyarada waxa laga dhigay jinac labadii indhood baa laga gooyay kam xagan Ethiopia xagan Imaaraat afar nin baa iska nool oo isu jawaabiyay iyagu oo qofkii run sheegana la oranayaa waa xarunta jawaasiista walaal la yicis qofkii run sheegana la oranayaa Xaaji Maxamed ka hadaan ku soo qaban karo walaal hay okay walaal sorry waan isku dayna ku soo qabto wasaan ku sheegay walaal ma garto inta badan device ka sidoo igu yaalaba si kala waan isku day laakiin xagaaga ka qaban karid ma sha Allah kulli walaal qodobada ugu door kala mar labaad idin ku soo celinaya oo maanta ah kul inay nala soo xidhaan hadaan nahay baahda deem wixii aniga la soo xidhaa wax ummadda dhan la soo wada xidhay bulshada ku dhaqan Soomaaliyeed dalka lahayd Dubai oo ka cabanayay nimankan maanta tashuushkay wadaan waayo dawladda Dubai waxay bilowday Imaaraadku inaanay Soomaalidii ciqaamadii u jadiidin marka waxay leeyihiin war hadii uu baasha wax noo hayo halka Cabdisalaam bal fariino mariyo baasha Morgan wuxuu ku joogaa baasaboorkii British bal hadaba hanoo jadiidiyo isagoo baasaboor hanoo sameeyo taas waa qodob kalena waxa weeyaan boqor buur madow maalinta dhawtaan waan idin kulaana waxba oran maayo free iyo waxba ka tolo oran maayo film bay la isloog yahay oo la yara fadhiisiyay waa taasoo isna maanta wala soo daayay qodob kale ugu dambeeyana waxa weeyaan Allahu musta'an qodobka kale wala labaadna waxa weeyaan ma sha Allah in wasiirkeena Dr. Bayle oo isagana ay u ogolaa IFM shirkadda International Monetary Fund IMF to ay ogolaatay in la yiraahdo Allahu musta'an Soomaaliya deyntii laga daayo taasuna waa guul iyo gobonimo ummadda Soomaaliyeed insha Allah taala way midoobaysaa waana israaci doontaa waxbana ayaan beentuna hal lug beelado lugtaas ma la qabanayaa dibna bis waxana wala isku dawqsay meesha Hargeysa waxa ka socda magaalada Burcana taam xaraaba ku sii siqeysaba oo meeshan way maxaaraysantahay laakiin insha Allah taala waynu ka guuleysan doonaa aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh